shiraan caadi ahayn oo golaha wasiiradu isugu yimaadeen maanta waxay iskula qaateen qodobada soo socda iyadoo la tixgelinayo codsi nooga yimid dawladda Turkiga waxaa la joojiyay adeegyadii ay bixin jirtay hay'adda Nile Academy ee dugsiyada iyo isbitaalada iyo wixii kale ee hoos yimaada hay'addaas ay dalka ka bixin jirtay waxaa la amray in howlwadeennada Nile Academy ay dalka uga baxaan muddo 7 beri gudaheeda oo ka bilaabanaysa 17 July 2016 dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkigu waxay si wada jir ah u ballan qaadayaan in adeegyadii waxbarasho iyo caafimaad ee ay bixin jirtay Nile Academy ay sidoodii u sii socdaan loona sameeyo maamul cusub oo labada dawladood ka wada shaqeynaya dawladda Soomaaliyeed waxay garab taagan tahay mar walba in dawlad dimuqraadi ah aan lagu bedelin hab xooga oo afgembi sidoo kale waxyaalaha golaha wasiirada looga hadlay waxa kamid ah golaha wasiiradu waxay magacaabeen taliyaha nabad sugidda Soomaaliyeed waxay u magacaabeen Cabdilaahi Gaafow Maxamuud inuu noqdo taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliyeed sidoo kalena golaha wasiiradu waxay warbixin ka dhageysteen wasaaradda arrimaha dibadda ku saabsan dagaalada ka socda dalka South Sudan oo dad Soomaaliyeed wax ku noqdeen dad badan oo kalena u baahan yihiin in loo fidiyo gacan gargaar ah oo lagu caawiyo waxaanay dawladda Soomaaliyeed u magacawday guddi wasaaradda arrimaha dibadda hogaaminayso inay qiimeeyaan xaaladda dadka Soomaaliyeed ee ku sugan South Sudan magaalada Juba waxa la wixii gacanahay u baahan yihiin dawladda Soomaaliyeed diyaar bay u la tagnayso soo mahadsantii